halkan guriga boqortooyada wuxuu dhisan yahay almost 200 oo sano ku dhawaad ayuu dhisan yahay 198 sano ayuu dhisan yahay gurigan boqortooyada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my YouTube channel again. ولكن صاحبكم شعيب back. مرة رأي سوق عند بيسي. سيدوا صاحبي الملبا جوكتان. نيكن واحد كو قاعدين أتورا بادي لكن ما أنتي وحواي أتورا مقالو. واحد جوجا أصله عاصمة الدولة النرويج. ما أنتوا واحد جعلستي إن أنا ذي اللقب صدو. guriga boqortooyada aan isla booqano dhamaanteen aanu dareeno deena boqortooyada ina kana deena aadna guriga boqortooyada Okay guys, sidaan hore idinku sheegay waxaan u soconaa guriga boqortooyada. Maanta waxay la socdo the one and only walaalkay Khalid. Yes. Way xiisay oo meena saani ugu xiisay. Sax. Yes, ninkaan maanta uu noo imaaday Oslo. Marka waxa la ma taqaana. Ani ma sheegi karo inaad sheegto informationkaas. Hadda waxaan joognaa muxuu ahaa Oslo. Sax. Gaar ahaan meesha boqorka. Sax. Gardenka boqorka, garden beerta boqortooyada. beerta boqortooyada. Sax. Guriga hadda la guriga oo socona. Sax. Marka ninkaan meel soo qorsheeya. Yes, sida hore ku sheegay waxay igu ogeedeen Atoora baadiye iyo buuraha inaan Atoora ka ahaa jiray laakiin hadda waxa la yiri Shucaab oo baadiyahaas ka soo guur magaalada Imaaw dhal magaalo in noqon liir saaxib dhar magaalo wala xitaa laakiin dhaqan magaalo lama yeesho dhar magaalo waa wataa saarkaysiin waxaan moodalaa markii hore laga raba umaleena Khalid ka badan wiidida wallahi billah ka badan kula guys marka meelka waa shan tahay walaalkay uu shidan yahay walaa ku faraxsanaa inuu yimaaday hadana wuxuu sheegay news oo ku farxo sax newskaas nimar dhacay asan sheegay news fiican ay ilahay guys laakiin marka daawataan guriga boqortooyada kadib meesha ugu dambayska newska ugu fiican idii u ribi doona insha Allah yes absolutely Okay guys, soo dhawaada saarkiisaan waxaan joognaa guriga boqortooyada. Guriga uu degan yahay boqorka Norway waa kana. Kulay madaxtooyada Soomaaliya hadda tagto waxa u maleynaa saan baa mari karta. Sababtoo ah sabab amni darteed. Laakiin inta boqorka Norway xaggan ayuu degan yahay. Ani ma asuumin laakiin ma yahay ilaa hadda waxa maalin 2018 mar waxa dhahay asuum saaxiibo ilaa hadda uu asuumi laa inoo. Hatta meeshan kuwan oo marsan soconay kuwaas xitaa marka qaar waa la sameeyay video. لكن لا حد يعسوم له كوسا نو كان جهار لو يعسوم نيو ده إلهي جرني نيو بس حد يكان ربعنا وش كيو نيو كوان كبير عني ولا نقول هاي ثورة جلا هاي You have to stay outside the time. Okay. Thank you. حالنا ماشى وأنا كيس كيف قاعد على هاي مركوك كاسات هذا حتى أنا يجي فوق halkan guriga boqortooyada wuxuu dhisan yahay almost 200 oo sano ku dhawaad ayuu dhisan yahay 198 sano ayuu dhisan yahay gurigan boqortooyada waxaa dhisay boqorkii lagu magacaabi jiray ama dhagax dhigay sanadii 1824 ayaa la dhagax dhigay gurigan aad arkaysaa waxaana dhagax dhigay boqorkii lagu magacaabi jiray Karl Johan oo loogu magac daray wadadan aad arkaysaan ee aad ka u dheer uguna caansan dalka Norway marka ay timaado 17 May oo ah maalinta ay u dabaaldegaan xornimada wadankan wadadan aad iyo aad ay buux u tahay sida aad arkaysaan muuqaalada xagan ka muuqdo marka almost 200 oo sano ku dhawaad ayuu dhisan yahay gurigan aad arkaysaan waxaana iska dhaxlo boqortooyada boqorka wiilkiisa ayaa dhaxlo mar walba laakiin haddii la waayo uusan joogin wax wiil ah uusan boqor ku lahayn qasab markaa waxa dhaxlayso gabadha ayaa dhaxlayso oo boqorada noqonayso sida hadda boqorada Ingiriiska Are so long,
waddadan iga dambayso waxaa la dhahaa Karl Johansgate waa waddada ugu caansan Norway ma fahanteen waxaa ku yaala guriga baarlamaanka waxaa kaloo ku yaala guriga boqortooyada waxaa kaloo ku yaala guriga Mr. Eidberg iyo hoteelada ugu shidan ee Norway ku yaala ma fahanteen marka waddadan marka la gaaro 17ka May waxaa waaye absolutely full waaye si aan caadi ahayn u camiran tahay inay imaadeen 17kii May laakiin ima suuragelin waa shaqeynayay soo haddaan imaaday waxaa waaye xaggan waxaa la yiraahdaa guriga boqortooyada barasho wanaagsan mar kale iyo marar kale haddii aad Sweden ka digan tahay meelaha haddii aad digan tahay oo timaadid tour guide kana joogo Khalid muxuu ahaa ninkan hadday waxa u sheegaa yes absolutely that's true of course blog inuu gabagabo waaye marka khiyaarta markan la socodsiin aad iyo aad guys horta waxaan go'aansaday inaan tuuladii ka soo dhamaado oo aan u soo dhamaado dhankan iyo Oslo iyo caasimadda alxamdulillah waxaa badan meesha soo ku soo mooday wax badan aan soo deganaa wax badan aan ku soo noolaa marka hadda waxaa waqtigii la isbedel lahaa ma fahanteen marka xaggana u soo wareegay insha Allah haddii wixii ka dambeeyaba xaggan ayaan ku qoranahay marka sida ula socda dawladda ay kan reer Oslo oo ciidamada u sartay yes hadda kadib aan ku naga mid yahay yes marka la socda adreeska ninka Oslo way maxaa la keenay guriga waxaa la yiri saaxiib adiga boqortooyada laga bilaabay leeyahay hadda guriga hadda masha qol kamid ah maaragtay hadda waxa waaye la yiri soo deg hatta lacag ma laga qaaday guriga boqortooyada farta ku fiiqino anaga baxran gali rabtay marka taariikhdii yara kooban ee aan idinka diyaariyay guriga boqortooyada waa inta soo qoran fadlan haddii aad channel ku cusub tahay subscribe saar la wadaaga asxaabtaada horey muu maqashay ama horey muu aragtay guriga boqortooyada ee Norway haddii aadan horey u arkin waa kana hay barasho wanaagsan haddii aad aragtayna goorma ayaa kugu dambeysay commentiga hoose ku soo qor thank you so much I know I'm screwed. Ooh.